waa mataano isku dhaf ah oo ka soo jeeda amristarka India kuwaas oo u nool qaab hal nolol laakiin ah laba shakhsi kala duwan. wax yar kadib dhalashadooda waalidkii dhalay oo awoodi waayay inay la qabsadaan xaaladooda waxay qaateen go'aan adag oo ay kaga tageen guri loogu talagalay dadka saboolka ah. meeshan ayay dhalaankii ka heleen qoys cusub si kalgacalna loogu xanaaneeyay waxaana loo bixiyay magacyada Sohna iyo Mohna. socdaalkooda gaarka ah waxa uu bilaabmay June 14, 2003 markaas oo ay ku dhasheen isbitaalka Sajata Kiribulani ee New Delhi oo ay ku dhacday xaalad naadir ah oo loo yaqaano dyscephalic parabagas taasoo la macno ah inay leeyihiin laba madax, afar gacmo iyo laba lugood laakiin waxay wadaagaan xubno badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan beerka kaadiheysta iyo beeryarada. markii ay dhalinyaro ahaayeen mataanaha ayaa xiiseeyay qalabka elektarooniga ah waxaana loo tababaray xirfadda korontada. waxay soo jiiteen dareenka mas'uuliyiinta shirkadda Punjab State Power Corporation Limited kuwaas oo aad ula dhacay aqoonta farsamada iyo awoodda gaarka ah ee ay ku shaqeeyaan afar gacmood. ugu dambeyntii waxaa loo soo bandhigay shaqo iyaga oo rumeeyay riyadoodii ahayd inay noqdaan kuwo isku kalsoon. si kastaba ha ahaatee dhakhaatiirtu waxay soo gabagabeeyeen in kala tug ay u badan tahay in uu dhinto mid ka mid ah halka kan badbaaday uu naafo ku noqdo nolosha. sidaas darteed waxay go'aansadeen inay u wanaagsan tahay in mataanaha ay isku xirnaadaan.